عليه وسلم salaadiinta waftiga ballaaran ee xukuumadda uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada wasiirka arrimaha gudaha wasiirka waxbarashada wasiirka khayraadka biyaha saraakiisha ciidamada gudoomiyaha gobolka maayarka culamaa diinka uqaasha iyo guurtida saxaafadda iyo labada beelood ee walaalaha ay Cabdi Garaad iyo waxa weeye Maxamed Garaad dhammaantiin waxaad ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay loogu xamdulnoqo raxmaadka wanaagsan ay noo bilaabmay in ilaahay khayrkiisa ina siiyo baan ilaahay ka baryeena waa idin ducaynayna bahara sameeye Maxamed Garaad iyo Cabdi Garaad waa u ducaynayna ilaahay horta inuu calooshooda qulb ilaahay soo jeediyo bal ilaahay ka baryeena ilaahay inuu qulubtooda qalbada sumar ilaahay ka baryeena ilaahay waxaanu ka baryeena sidii aad ahaan jirteen in ilaahay idinka dhigaan ilaahay idinka baryeena ilaahay waxaanu idinka baryeena intii idinka dhaawacantay ilaahay inuu boqodhiyo ilaahay waxaanu idinka baryeena aqliga saliimka ee wanaagsan in ilaahay idinku soo dabalaan ilaahay ka baryeena ilaahay waxaanu ka baryeena dad islaamaatihiin waxa way colaada iyo dhibka muddada 15 sano soo socday in ilaahay maanta inta inaga wad ka siin ilaahay inuu ka baryeena inta haddaan ka gudbo hadalku waa kooban yahay waxa la yiri hadal nin badiyayna ma wada dhamayn nin yareeyana waxa la yiri waxa kaba tigin waynu isgaranaynaa in badan baynu wada hadalnay xaajadan in badan baa la soo galay anigu waxaan leeyahay markii shanaad ee aanu xaajadan waxa weeye aanu gallo intii aanu qorilay iyo dhumay iyo kala baydh iyo dharkeengeeyo iyo hawdka isaga kala daba qaadaynayna waad garanaysaa intii aanu fadhinayna waad garanaysaa haddaanu salaadiinta iyo xukuumadda qaybo kamid ah nahay wax kale idinkama aanan doonin madaxdii reerka tihiin in colaada iyo dhibaatada taagan la soo afjaro oo mar kaliya waxa weeye calooshiinu way adag tahay ilaahay inuu ku duxiyo nabadu waxay tahay bal inta aan raadineen waxba idin kama rabin maalintii suuqeen dambeysay xamdi bay ahayd hadalkayga waxa kamid ahaa colaada uqaashiinu wadaan ee culimadiinu aad wadaan ee garaadadiinu ay wadaan ee qurba joogtiinu ay wadaan umadaha ku canaanina baa hadalkii suuqeen dambeeyay oo ahaa waliba waxaan ku daray rag halka fadhiya oo guurtiya oo nin garbooda oo cuqaala baa ku dhimanaya hadii aad nabada aydan qaadan waana dhacday warag maanta halka aan iga muuqan oo maanta aakhira jooga ayaa jira hadeerna hadeen wallahi qaadan oo istaba qaban ragina halka fadhiya rag badan baa waxa weeye ka daba tagi doona waaya waxaynu u baahanay markaa waxaynu u baahanay nabadu waxay tahay waad garanaysaa colaadu waxay tahayna waad garanaysaa wax allaale wax la idinka rabaa ma jirto xaajadu way soo biya kartay waxay soo istaagtay meeshii ugu sareysay bay soo istaagtay waad maqlayseen xukuumadda go'aankii ay riday annagu waa la qabnaa haddaanu guddiga dhexdhexaadka nahay iyo haddii aanu guurtida nahay iyo haddaanu culimada nahay iyo haddii dadka ka soo jeeda deegaanka oo dhan ay yihiin waa la qaban iyo dhammaan reer Soomaaliland go'aanka ay sheegeen in ay ku hawlgalaan oo waliba ah in gacan bira lagu qabto ciidamada beeleedyada oo la galo go'aanka waa ku raacsana jawaabaheeda dambana waa maqli doontaan xaajadan haddaan dib ugu soo noqdo xaajadan waa shariica weey shariica ay noqonaysaa culimadaas halka fadhida ayaa kitaabka u baaraysa annagu haddaanu guurtidii nahayna wixii ay nooga baahdaan iyo guddiga dhexdhexaadka ah ayaanu fulinaynaa inaad qaadataan baa loo baahan yahay xukuumadda soo hadhay xukuumaddu maanta shirka weyn oo furtay ilaahay khayr ha siiyo muddana waa joogeen iyagu wixii amniya iyo wixii looga baahdo ee fuluna ayay iyaguna diyaar u yihiin laga bilaabo aroortii xukuumaddu shirka inala geli mayso banaankaasay joogaysaa hawshu waxa ay ku soo haraysaa ee ay noqonaysaa waxa weeye
وقلنا دحدحات كأه يعلم هذا وايه عيلف وين مركانو جوجني سيدا uu gudoomi uu sheegay wasiirka arrimaha guduhu ceeriyaan markaanu tagnay ninka jaac baa loo oran jiray ninkaas waxa weeye wiilku adeerka uu ahaa maalintii hore u dhintay labadiisi weyn la subaxaasay dhinteen inamadii uu dhalay iyo waxgaradkii markii la isu yimi raggii uu dhalay oo dhan oo fara badan oo gaaraya sida uu sheegay wasiirku rag badan waxay yiraahdeen war nabad baanu qaadanaynaa annagoo maanta meedkayga hadda soo aasnay waxaanu qaadanaynaa wax allaaliyo wixii waxa weeye dadka iyagu noo gartay waxaanu raali ka nahay ragga dhintay in ilaahay waxa weeye uu foofsaday ballanna waxaanu idinka qaadaynaa waliba jaamac oo iramada dhalay inaan wax damba dhicin iimaan ka fiican ma jiro tii ceelaf weyn وكا halkaas noogu yimi waayahay hawshii ceelaf weyn nin baa gabar dilay wuu baxsaday waa la soo qabtay waa la hayaa reerkii baa lagu wareejinaya marka waxaanu leenahay oo idin leenahay ninka nabad doonaya marka nin laga dilo ama waxa weeye dib yar ku dhaco dib u taliya colaadna wad garanaysaan waxaan hadalkay ku soo gabagabaynaya xabad joojin waad ku dhawaaqdeen oo raggii iga horeeyay baan ugu mahadnaqayaa ee tuulooyinka maray ee xukuumadii isugu jiray guurtiya garaado go'aankii aad la qaadateen waa idinku mahad celinayaa ahaa inaad xabad joojin ku dhawaaqdeen oo taasi hore u dhacdayo wax ka dambeeyo dhacay ma ay jiraan taanu markaa hadda idinka fadhinaa waxa weeye mandate-ki inaad hadda maanta ku dhawaaqdaan oo aad bixisaan 22 iyo 22 hadda aad soo gudbisaan oo nagu soo wareejisaan xaajadaasna aroortii aanu gallo waxa weeye xukuumaduna ay halka nagu waardiyeynayso oo wixii kale looga baahda ay fulinayso intaas hadda la idinka fadhiyaa mandate-ki inaad bixisaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh